24 saac markii ay ka soo wareegtay tallaabadii baarlamaanka federaalku muddo kororsiga 2 sano ah ugu sameeyeen madaxtooyada iyo baarlamaanka una sheegeen in loo baahan yahay qabashada doorasho qof iyo cod ah. waxaa jira tuhumo la xiriira in go'aankaas ay ka dhalatay caro ay wakiilada caalamiga ka caroodeen tallaabada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo qayb ahaan soo dhaweeyay qaraarkii baarlamaanka federaalka ee lagu go'aamiyay in doorasho qof iyo cod la qabto, taasoo ay maamulayaan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan laguna laalay heshiiskii 17 Sebteembar, ayaa dhinaca kale digniin u diray wakiilada caalamiga ah oo uga digay faragelin ay ku sameeyaan arrimaha masiiriga ee Soomaaliya, gaar ahaan doorashada uu ku tilmaamay arrin ay u madax bannaan yihiin shacabka iyo dowladda federaalka. waxaa qoraalkaasi lagu qoray war-saxaafeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo lagu baahiyay baraha bulshada iyo warbaahinta dowladda. durba dadka falanqeeya siyaasaddu waxay hoosta ka xariiqayaan in fiila Soomaaliya ay og tahay warka beesha caalamka ama ay ka hortagayso wax kasta oo ka hor imaan kara go'aankeeda. waxaa Farmaajo horyaalla caqabado culus oo la xiriira sidii u fulin lahaa damaca muddo kororsiga hay'adaha dowladdu ku dhaqaaqeen. hadalka Farmaajo waxa uu imaanayaa xilli maalin ka hor uu soo shacbaxay isku day u muuqday mid lagu doonayay kala furfur lagu sameeyo hay'adaha ammaanka ee dalka, dabadeedna la iska horkeena iyaga iyo fiila Soomaaliya, kaasoo dadka qaar ay rumaysan yihiin wakiilada caalamigu lafahaantoodu aysan ka marnayn abaabulkiisa. xiriirka beesha caalamka iyo madaxtooyada Soomaaliya waxaa ka muuqday dhaawacyo aan qarsoodi ahayn, kaasoo soo bilowday markii dalalka qaarkood la rumaysan yahay inay qayb ahaan fuliyaan siyaasadda Mareykanka ay isku qaawiyeen ka hadlidda arrimaha siyaasadda gudaha iyo waqtiga ka dhammaaday Farmaajo. waxaa ka mid ah Norway oo hore u soo saartay qoraal ay ku caddaynayso in awoodda wareejiyo, inkastoo ay dib uga guratay 24 saac kadib. digniinta Farmaajo ayaa imaanaysa xilli maalmo ka hor fiila Soomaaliya Mareykanka lafahantiisa uga digtay faragelin uu ku sameeyo arrimaha doorashooyinka ee dalka. warqadaas oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaa ka jawaabay dalalka arrimaha Soomaaliya daneeya inta badan, kuwaasoo shaaciyay inaysan wax faragelin toosa ku haynin arrimaha khaaska, balse laga maarmaan ay tahay in xal waar ay ka gaaraan Soomaalidu khilaafka dhexdooda ah. hase yeeshee digniinta haatan ee madaxweynaha federaalku waxay u egtahay mid ka hortag waa tallaabada beesha caalamka docdeeda ka qaadato arrimaha doorashada, maadaama baarlamaanku uu laalay heshiiskii 17 Sebteembar ee la doonayo in gundig looga dhigo doorashada, kaasoo beesha caalamku u arkaysa kan keliya ah ee dalku doorasho ku gaari karo. haatanse weli lama oga mowqifkooda ku wajahan go'aanka baarlamaanka federaalka. maanta kulan gaar ah ayay yeesheen Farmaajo iyo wakiilada caalamiga ee dalalka lagu magacaabo C6+. waxaa la rumaysan yahay inay dhex martay dood culus oo ku wajahan jihada siyaasadeed ee la aaday, taasoo ay ka muuqato inay ka dhalan doonaan go'aamo cusub oo dhinacyo badan saameyn ku yeesha. fiila Soomaaliya waxay hadda doonaysaa inay isticmaasho siyaasad dhuldhigid ah si ay ugu yaraan iskaga kala yarayso culeysyada diblomaasiyadeed, kuwa siyaasadda gudaha, iyadoo maraysa surin kasta oo ay ku hirgelin karto damaceeda. cidda ugu badan ee ay doonayso inay biyo qodob ku shubto waa wadamada reer galbeedka ee ku sugan Xalane oo durba muujinaya dhawaaqooda. ilo wargalah oo ku sugan xayndaabka Xalane waxay hoosta ka xariiqayaan in wakiilada caalamigu ay shalay galab yeesheen wada hadal hordhaca oo ku wajahan qaraarka baarlamaanka federaalka. qaarkood waxay soo jeediyeen in maalmo dheeraada wadatashi la geliyo dhacdada lagana eego falcelinta dhinacyada Soomaalida ee gudaha, kadib laga warsugo war ka yimaada caasimadaha dalalka reer galbeedka sida ay uga hadlaan arrintan. koox kale waxay soo jeedeen in durba la isticmaalo handadaad iyo tallaabo kasta oo looga digi karo baarlamaanka iyo madaxtooyada. madaxweyne Farmaajona lagu wargeliyay in qaadashada go'aankaas ay ka dhalan karaan cawaaqibyo xumo waaweyn. si kastoo ay noqoto, waxaa si weyn indhaha loogu hayaa dhawaaqa ka imaan doona wakiilada arrimaha Soomaaliya. beesha caalamka dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ku dhaliilaya inay qayb ka tahay geedi socod la'aanta arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. muddo badan ay ka warwareegtay inay ka rusheegtay xaaladda gudaha ee doorashada,
mowqifkeedana ay ku koobtay cambaarayn iyo arrinta la xiriirta in si diblomaasiyadeed oo keliya looga hadlo dhammaan dadaallada la xidhiidha tubta doorashooyinka ee Soomaaliya. muddo kororsiga baarlamaanka iyo madaxtooyada dad badan oo mucaaradka ahi si weyn ayay u dhaliileen, waxaana ay sheegeen inay walwal weyn ka qabaan hannaanka fulinta iyo gebi ahaanba sharci ahaanta qaraarka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Soomaaliya